aad baa umahadsantahay walaal. Aniga qurbo baan kusoo koray, muddo badan baan joogay. Intaasoo dhan waxaan ka shaqaynayay, my backgroundkayga waxay tahay media. 5 sano ka hor waxaan bilaabay barnaamijyo Soomaalida isdhexgeliyo qurbada iyo dadka wadanka jooga. waxaa la yidhaahdaa Integration TV, isdhexgalka bulshada. So mashallah, intaas waa YouTube-ka dadka dhan iga barteen. waxaan leeyahay YouTube channel oo 50,000 subscribers ku jira, about 6 million views ah. mashallah, so Soomaalida oo dhan waxay rabaan wadankooda inay bartaan dadka qurbo jooga. anigana dadkan isku xiraa qurbaha iyo dad. marka maxay kugu qaadatay abuuritaankaagii channelkan Integration TV iyo dabcan caqabado ma kala kulantay markaad abuuraysay iyo ilaa hadda uu halkan soo gaaray dad badan ay ku taxan yihiin? so TV-ga waxaan u bilaabay markaan Canada kusoo korayay. waxaan fahmay maan aqoonin Soomaaliya, dadka Soomaalida meeshaan ka imid, saasaan kusoo koray. markaan caruur dhalay baan fahmay haddii aniga caruurteeda waxaan baray gormay baranayaan. markaasaan dad badan baa jira oo saasoo ah. so markaasaan iska bilaabay, waxaa idhi sababtay tahay caruurteeda inay wadankooda bartaan, dadkooda, afkooda, and then inay ogaadaan Soomaalida waa dad wanaagsan iyo wadankan ka dhimi waa wadan wanaagsan. so anaa 30 sano qurbo joogay, soo laabtay intaasaan ku bilaabay showga. hadda horto waxaad ku sugan tahay gudaha dalka, Garowe ayaa timid, waxaad kaloo hadda joogtaa Jubbaland, xamarna waa tagtay, marar badanna saasoo kale waad samaysaa. socdaalkaaga wadanka waad kusoo laalaabato, maxaad ka samaysaa? barnaamijyo noocee baad hadda samaynaysa? hadda waxaan ku noolahay magaalada Kismaayo. waan soo laabtay, qurbo waan kasoo laabtay. inta badan waxaan arkay hadda 16 magaalo oo Soomaaliya ku saabsan. maasha Allah, wadanka waxaan jecelahay inaan arko magaalo walba, because dadka waa kala nooc. sometimes dad keliyaan nahay, dhaqanka waa kala nooc, luuqada waa kala nooc. so meel walbaan tago waxaan barnaamijyo ka duubaa dadka isbartaan. dadka Soomaaliyeed hadda 30 sano burburkii iyo wixii dhacay waa dad kala fogaaday. isdhexgalka bulshada waa loo baahan yahay inay dadka ogaadaan walaalka oo xaggaa jooga iyo walaashay oo xaggaa joogta waa dad isku mid ah. hadda marka qurbaha si toosaad usoo macaasalaamaysay oo macnaha wadanka degantahay? magaalada Kismaayaan ku noolahay. masha Allah. qorshahaaga muxuu yahay marka hadda barnaamijyadaadii waad sii wadaysa dabcan? hadda barnaamijyo badan baan soo wadaa oo ku saabsan barwaaqada wadanka Soomaaliya oo dhan. hadday tahay caafimaadka wadankeena taalo, hadday tahay waxbarashada dhalinyarada oo waxbartay, just waxay ku saabsan tahay wadanka waxa wanaagsan. insha Allah waxaan rabaa inaan adduunka dhan Soomaalida meel u jooga inay bartaan wadankooda si fiican. waxaan haysanaa wadanka ugu wanaagsan adduunka, anagoo Soomaaliya ma arkayna waxaas. maalin walba hadda markaan badda aado Kismaayo waxaa idhahdaa maasha Allah, alxamdulilah, ilaahay nimcaduna siiyey ma garanayno. insha Allah barnaamijyadan soo gelin doono cuntada, caafimaadka, hawada, inaan dadkan tusno wadankeena. haddii aan ka shaqeyno waa horumari karnaa. intii aad ku jirtay barnaamijyadan aad samaynaysay Integration TV iyo showyada aad soo saaraysay, wax caqabado ah oo aad kala kulantay ma jirta oo aad hadda nala wadaagi karta? waxyaabihii aadan ilaawi karin wax kugu xasuusta badnaa? aniga gabar baan ahay. inta badan gabdhaha Soomaaliyeed waa taqaanaa media kuma jiraan in badan. so challenge-ka badan aniga la kulmay waxay tahay dad badan baa ku quureen cilmigaan leedahay iyo waxaad baratay iyo waxaad sameynaysay. dad badan ma fahmayaan hadda waxaan sameeyo. but insha Allah aniga waxaan rabaa taariikhdeeda in hadda maaha, maybe markaan dhinto oo markaan weynaado oo dadka fahmaan. maasha Allah, maanta barnaamijyaan haynaa YouTube-ka ku jira oo wadankeena qurux badan yahay, oo wax wanaagsan laga daawanayo, oo wax fiican laga sheegayo. Google hadday sawiro wanaagsan laga hesho, Integration TV video wanaagsan, intaasaa muhiim ah. dadka Soomaalida ma fahmaan wadankaaga haddaa caayaysid, qurun ka qoraysid. hadda internetka waa village waay, waa dadka dhan baa arki kara waxaas. so waa inaan wanaag wadankeena ka sheegnaa. challenge badan baan la kulmay. kelmada naag ka dhig aan la soo baxay waxay ku saabsan tahay challenge-ka badan aan soo maray. dad baa rabay inay sameeyaan markaan Soomaaliya iman jiray, markaan gobollo kala tegi jiray. dad baa ii jiri jireen wax duubo, qofka uma joojin, waan wada barnaamijkeena.
ilaa iyo hadda wadankay ku noolahay alxamdulilah. so dadka waxaa u sheegaya dhegeysanaya qofna joojina jooyinkaaga, hor u socda, dexda xida, waxbarta. adduunka laga tegayaa maxaa ka tegaysaa waaye. aad iyo aad inta badan markaad soo dhigto boostiyada hadday tahay twitterka ama facebooka social media oo dhan waxaad isticmaashaa halkudhig ama hashtag aad leedahay naagis ka dhig. ereygaas bal tafaasiil ka bixiyo waxaad ula jeeda. naagis ka dhig iyo nin ka dhig waxa waaye ereygan waxaan ka maqli jiray hooyaday waxay oran jirtay marka 8 gabdhood bay dhashay maasha allah. so markii wax noo dareyso kashira gala wax naagis ka dhiga walka dhaqa waxaas. aniga waxa u bedelay naagis ka dhig wax barto, dhexda xido, is adkee, wax baro. because gabdhihii Soomaali lama waaniyo, wiilasha waxaa loo leeyahay wiil ka dhig wariyaa isaga noqo. qof kornay gabadh Soomaaliyeed gabadhaha inay adkaadaan, inay wax bartaan, guri waa ka adkaan kartaa, caruurtada waa ka adkaan kartaa, ninkaaga maasha allah ka dambeyn kartaa, tacliimna waa baran kartaa. qof ku waaniyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaa la jiro. gabdhihii Soomaaliyeed hadda intaan Soomaaliya waxaan fahmay 8 saacadood 9 saacadood maalintii kishida ku jiraan. kishida waa lagu jiri karaa, gabdhihi waa inay guriga waa in laga shaqeeyaa, muhiim waaye. gabdhaha Soomaaliyeed waa inay daalaan, inay ka fekeraan tacliintooda. hooyo wax baratay caruurteeda wax bari kartaa, hooyo wax baratay caruurteeda wax bari kartaa. insha allah waxaan dadaalaynaa inaan barnaamijyo u sameyno dumarka Soomaaliyeed say fikirkaa la wareegaan. nolosha maaha dad iska soco, nolosha waxay tahay caruur baan dhalaynaa, caruurta maxaan uga teginaa, maxaan ku kordhinaa, siday u korayaan. insha allah naagis ka dhig waa intaas kusaabsantahay dhexda xidha gabdhaha Soomaaliyeed. ugu dambeyntii su-aasheeda ugu dambaysa maxaad jeceshahay oo dhaxal noocee baad jeceshahay inaad uga tagto ummadda Soomaaliyeed oo berri ka maalin lagugu xasuusto? hadday tahay inaad bugaag qorto, hadday tahay inaad documentary dhaxalgalahoo qarniyo jiri kara aad samayso, ma kugu jiraa fikir noocaas ah oo berrita ka maalin lagaa dhexli karo? waxaan xusuustaa 6 sano ka hor markaan barnaamijyada TV-ga Canada ka bilaabay ummadda cadaanka dhan oo Canada ku nool aan ka tegay Soomaalida waxay yihiin, waxay bartaan, dadka wanaagsan. waxaan xusuustaa markii ugu horeysay aan Soomaaliya dadka ugu qosjinay Soomaaliya ma taqaanid, dadka Soomaaliya waxay kugu dhegeysanayaan, gabar qurbo kusoo kortay baa tahay. markaasaan oran jiray maanta ma fahmaysaan waxaas. aniga taariikhdeeda waxaan rabaa inay dadka fahmaan qof qurbo kusoo koray oo Soomaali ah waa Soomaali. dadkaas waa dad nadiif ah, dad wanaagsan. hadda dad dhalinyarada oo dhan wadankooda way rabaan inay yimaadaan, kuwii wax bartay inay cilmiga u keenaan wadankooda. soo yaa soo dhaweynaya haddii qof walba Soomaali leeyahay, Soomaali dadkii sida Soomaali kuma hadashid, yaa soo dhaweynaya dadkan. so taariikhdeeda waxaan rabaa insha allah in dadka ogaanaan dad badan oo qurbo ka yimi aan soo celinay oo cilmi leh oo wadankooda wax tari kara, iyo dad wadanka ku nool oo raba inay wax bartaan oo horumaraan wadankooda. insha allah waa dadaalanaa. hadda dad badan baa soo laabtay alxamdulilah. markaan arko youtube-keega dadka wareysiga ka qaadayo, dad aan bulshada baray. so maaha nolosheeda aniga fikir waxaan ka fikirayaa caruurteeda markay weynaadaan inay dad wanaagsan ka arkaan TV-ga, wax wanaagsana soo gelino. waa nacay qarax iyo balaayo laga hadlayo Soomaalida iyo negative-ka. waa inaan positive-ka badinaa, inaan wadankeena wax wanaagsan ka sheegnaa, inaan dadkeena wax wanaagsan ka sheegnaa. nin walba wuu og yahay wuxuu yahay. haddii aan caayano ismaynano Soomaali baan nahay, anigaa ismaynana, wadankeena anagaa ismaynana. ma dhici kartaa marka ma kugu jirtaa qorshaha inaad aad tababar siiso sidaan u fakerayso oo kale si ay ugu fakeraan wariyaasha ka shaqeeya gudaha oo laga yaabo inaysan fursado badan u helin tababaro kor lagu qaadayo tayadooda wax soo saar in loo sameeyo? ma kugu jirta adiga qorshaha inaad ka qayb qaadato oo aad ka caawiso sidii ay tababarada aad qabto iyo aqoonta aad leedahay aad wax uga gaadhsiin lahayd wariyaasha kale ee gudaha gabdho iyo wiilalba ha ahaadeen? hadda barnaamijyo waana sameeyaa hadda intaas for volunteer baan ku sameeyaa Jubaland TV, gabdho iyo wiilal badan. hadda waxaan bilaabanaa tababarka iswareysiga say u sameeyaan, kamarada say u qabtaan. maaha nolosha just adiga waxaa baratay qof kale a wax sii bartid baa ka wanaagsan. so insha allah waxaan rabnaa programmo wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed u sameyno. Jubaland TV ku saabsan kasoo bixi doona iyo showgeedii oo weekdayska jimcaha umaanaya kasoo bixi doona bisha 6 ah. so insha allah waan dadaalanaa. tacliinta waa inaa qof kale u kufisa, adigana saas wax usii baranaysaa.
Please subscribe and like and share.